sababtuna waa wax xisaabee meeshan yaalla ma laha. maalan bal 2 bakeeri halkan ma taalo, marka waa eber 0 ayay halkaa la mid tahay. markii aan xisaab kale la nimaado number 2 qaybta labaad, haddaan idhaahdo baaquli waa alaab 3 xabo waaye, 3 baaquli 3 baaquli oo qiimihiisa midkiiba uu joogo 25. wadartu waa maxay marka? ani ma qorayo wadar equal nama sameynayo, iyadaa inay sameyso equalta laga rabaa. markan waa 75. waa 3 baaquli midkiina 25 buu joogaa, waa 75. marka dollar hadday ku taado dollar calaamad ahaan dollar gasho halkan, ama dirham gasho aduu saadood. marka si aad calaamad dollareed ama magac ama boqol, marka 75 halkan ay ka tahay 75 horteeda inaad keentid calaamadda dollarka, ama horteeda aad keentid AED oo dirham ah, ama wax kale oo lacagaha loo isticmaalo magac ahaan usoo gelisid halkan. waxaad isticmaashaa adoo kor u baxayo wadarta qaybteeda, adoo tegaya qaybtan sare ee E. hadda waxaan joogaa E, midka hadhow kaaga aadan tahay F ama C. right kaliya intaa ku tiraado dhanka bidix, waxaad tegaysaa format cells. format cells wuxuu soo saaray boxkan waxaa ka taabanaysa currency aan ka xulanayna. currency waxaa ku qoran decimal places, uma baahnin. marka symbolku waa dollar, kan uma baahnida 00. haddaa rabto waa ka aqbali kartaa. kulli wuxuu ku calaamadeynayaa 000 dollar, calaamadda dollarka. $400, $75, $0, same aan ku laabana mar labaad. format cells, currency. marka decimal places waxaa ii taalla 0 ah, wuxuu waa marka hore 2, taasoo la mid a in 2 0 lagu daro, 2 eber dhibic in xisaabtii walba lagu daro. marka halkan waa ka bedelan kartaa lacagaha kale caalamka ka xulan kartaa, sida lacagahan kale euroga, pound, euro, anything else, wixii kale ee caalamka laga isticmaalo, dirham iyo luuqadahan kale lacagahooda. marka dollar baa calaamad ahaan halkaas inooga ah, waana currency. inaad calaamadda dollarka halkan ka xulatay ama wax kale ka xulatay, kadibna okay dhahday, intaas baa u muhiima. intaa kadib waxaa halkan ku haysanaa wadartii. okay, wadartan waxaa u dambeysa ilaa 0. waxaan u baahanaynaa wadar guud oo ah wadartan qaybta ah, oo leen walba hal wadar samaystay. 75 waa isku gooy, waa meel. 400 waa meel isma laha. inaan samaysano qayb kale oo hal mar intay isu geyso hal meel ka wada dhigayso, taasaa muhiima. marka taa waxaan ku heli karnaa inaan highlight ku sameyno inta aan rabno, xisaabaadka aan rabno dhammaantood, oo aan soo reebno hal meel. sida haddii aan halkan ku jaangooyo xisaabta meel ay u baxda ayaa loo baahan yahay inaan hal fidq oo 0 aan ku darsado si ay natiijada halkan u timaado. markaas waxaan usii baahanaya haddana inaan taabto calaamadda autosum. waxaa ka helaysaa hadda shaashadda windowga way ugu yaryahay inaan weyneeyo. autosum hadii jeer wuxuu yaalaa qaybtan kore ee linkiga ku xigta. autosum waa calaamadan iida u eg. haddaan taabto waxay ii keenaysaa markii laysu gegeeyo 475. waa 475 gooni ay kala ahaayeen, haddaba isu dartay hal meel bay ii noqday. mar walba markaa aan horta bold ka dhigo calaamad weyn saarto, kalarna u yeelan kartaa si ay kaaga gooni ahaato kuwan kale. hadda natiijadii waxay leedahay kalar gaduud ah,